xisbiga wadani waxa uu ballan qaadayaa inuu kor u qaadi doono aqoonta iyo tababarada shirkadaha adeeg bixiyayaasha suuquna uu xor inoo noqon doono cid gaar aan loo xiri doonin gobolkan waa gobolka ugu ayaanka daran leh waa gobolka dhaqaalaha Soomaaliland soo saara waa gobol aanay waxba kaga soo noqonin boqolkiiba 70 uu ku contribute gareeyay miisaaniyadda qaranka in dadka reer berberi ay u codeeyaan isbedelka inaynu codkeena siisano tamar jaban tamar casri ah inaynu codkeena siisano horumar gobolka Soomaaliland barnaamijka xisbiga wadani ee ka qayb galay doorashada madaxtooyada wuxuu ku dhan yahay halkan waxaan doonayaa inaan kelmad kooban ka idhaahdo tamarta maadaama oo magaalada berberi ay tahay xeeb magaalo aad ugu ooman haddii ay dhaqaale ahaan noqoto iyo nolol ahaanba inay hesho tamar jaban marka dadweynaha reer saaxil iyo guud ahaanba reer Soomaaliland waxa aan doonayaa inaan la wadaago ku talagalka iyo qorshaha xisbiga ee barnaamij ee la xidhiidha sektorka ama qaybta tamarta iyo waxyaabaha uu ku talagalay inuu ka qaban doono in ugu horeyn horta waxa aynu ognahay oo aynu ka warqabnaa in aynu tamar jaban helnaa inay muhiim u tahay kobci dhaqaalaha marka aynu si guud u hadlayno waxa kale oo xaqiiqa in ay ilaalintii deegaanka inaynu tamar jaban helnaa ay qayb weyn ka qaadanaysa iyana waxa sidoo kale tamar jaban inaynu helnaa ay faa'iido u tahay guud ahaan Soomaaliland oo dhan horumarkeedii haddaba xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxa uu higsigiisu yahay ama ku talagalkiisa la xidhiidha tamartu higsigiisu ama visionkiisu waxa uu yahay ugu horeyn helitaanka tamar nadiif ah oo qiimo jaban taasoo ka qayb qaadanta kobac dhaqaale oo waara iyo wanaajinta tayada nololeed ee bulshada markay sidaa tahay xaaladda tamarta aynu ka hadlayno ee gobolka saaxil waynu ka dharagsannahay gobolka saaxil ma helo tamar ku filan isla markaana tamarta gobolka saaxil aynu ka helnaa waa mid aad qaali u ah waxa dadweynaha reer saaxil xilliyada ugu adag xagaaga kulaylku uu darajada u sareeyo marayo farsamo ahaan ama technically qalabka la isticmaalaa ma aha qaar sustainable mashiinada la isticmaalaa daqiiqad bay u go'an mushkiladda koobaad ee gobolkani uu ka cabanayay waxay ahayd tamar marka aynu si guud uga hadalno mushkiladaha tamarta la xidhiidha ee ka jira Soomaaliland oo dhan waxa xaqiiqo ah oo aynu ognahay in Soomaaliland korontadu ay tahay ta ugu qaalisan gobolka aynu deganahay oo dhan ama baan idhaahdo gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba dunidaba waa meelaha ugu tamarta qaalisan ayaa ay ka mid tahay waxa kale oo xaqiiqa in dadka reer Soomaaliland oo reer saaxilna ay kow ka yihiin boqolkiiba 48 aanay helin tamar ku filan aanay helin qaalinimada marka laga yimaado taa macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay 10kii qoys ee meel isugu yimaadaba 4 ka mid access ama helitaan tamar ku filan ma helaan in waxa kale oo xaqiiqo ah in boqolkiiba 89 dadka reer Soomaaliland ay cuntada ku karsadaan dhuxul arrintaasina waxa ay dhibaato weyn ku tahay deegaanka suuqii tamarta Soomaaliland waxa uu xidhan yahay shirkado gaar ah iyadoo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 14aad uu inoo ballan qaaday in suuqu uu xor noqdo oo laga ilaaliyo monopolization-ka waxa la yiraahdo cid gaar ah in loo xidho hawl gaar ah waa yahay marka mushkiladaha faraha badan leh tamarta la xidhiidha ayaa jira berbera si gaar ah arrimahaasi u taabanayaan xisbiga wadani waxa uu inoo ballan qaaday oo aynu ka filaynaa in uu wax ka qabto mushkiladaha faraha badan ee ay tamarta ku soo sheegnay ugu horeyn xisbiga wadani waxa uu inoo ballan qaaday in aynu helno in uu sameeyo siyaasad hufan oo saamixi doonta in 5 sano ee soo socda la gaaro yoolashan soo socda oo qodobka koowaad waxa kaabis iyo wax ka bedel lagu sameyn doonaa xeerka tamarta Soomaaliland oo haddii aan xeerka isdir dul taago mushkiladaha uu leeyahay waxa kamid ah xeer waxa loo sameystaa in lagu regulate gareeyo ama lagu ilaaliyo xaqa bulshada isla markaana lagu sugo xaqa adeeg bixiyaha dawladdu si siman tiyodanaha dadka ka duuleysa in ay ilaaliso oo ay dabar u noqoto iyo xayndaab muxuu ahaa ummadii
xeerka tamartan markaa kelmado kooban ka odhanaya xeerka tamartu waxa uu jidaynayaa oo marka uu dhisayo guddida tamarta komishanka tamarta Soomaaliland isla dadkii la regulate gareyn lahaa 7 xubnood buu xeerku sheegayaa 7 xubnood 4 kamid waxa ay ka imanayaan dadkii aynu ugu talagalnay ama shirkadihii adeeg bixiyayaasha ahaa ee loogu talagalay in la regulate gareeyo arrintaas oo ayaan darro weyn ku ah ujeedadii xeerka loo aasaasay xeerka ujeedadiisu waxay ahayd in qofkan muwaadinka ah ee miskiinka xuquuqdiisa lagu sugo bal qof la leeyahay mushkilad dawee mushkilad bay dawladdu doonaysaa inay daweyso cidii mushkiladda abuureysay bay u dirtay daaweyntii waa arrin ayaan darro weyna xeerka dib uu xisbigu ugu noqon doonaa wax weyn buu ka bedeli doonaa wuxuu ka dhigi doonaa mid danaha dadka ka shaqeeya waxa kale oo xaqiiqa oo halkan aan idinku soo gudbinayaa xisbiga wadani waxa uu idin ballan qaadaya in 15% uu hoos u dhigi doono qiimaha tamarta Soomaaliland oo dhan qiimaha tamarta Soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxilna oo gaar ay u sii tahay waxa kale oo xisbiga wadani uu idin ballan qaadaya in 17% uu hoos u dhigi doono heerka koronto la'aanta waxaynu sheegnay 40% in ka badan inaan dadka reer Soomaaliland access u helin tamar ku filan in xisbigu waxa uu kordhin doonaa oo kor u qaadi doonaa xadidka tamarta aynu helno ilaa 200 oo megawatt ayaa muddada uu xilka hayo kor u qaadi doonaa waxa ay 20% kordhin doonaan waxa loo yaqaan renewable energy macnaheedu inaynu tamartii qaab casri ah u dhalino inagoo ka faa'iideysanayna deegaankan dabiiciga ah ee Ilaahayna siiyay haddii ay dabaysha noqoto iyo haddii ay cadceed noqotaba in waxa uu xisbigu kordhin doonaa isticmaalka qalabka hoos u dhigi kara isticmaalka korontada hadda qiimaha korontada tiyo qayrul caadi ay nagu tahay oo wadamada adduunka ugu korontada qaalisan aynu ka mid nahay haddana dadku kuwii oo aan wax badan isticmaalin waxa mushkilad weyn ka timaada qalabka iyo muxuu ahaa saacadaha iyo waxyaabahan aynu adeegsanayno xisbiga wadani waxa uu ballan qaadayaa inuu kor u qaadi doono aqoonta iyo tababarada shirkadaha adeeg bixiyayaasha suuquna uu xor inoo noqon doono cid gaar aan loo xiri doonin in marka aynu isku soo wada duubno gobolka saaxil oo ah halka ugu baahida badan leh marka aynu tamar ka hadlayno waa gobolkii uu musharaxa madaxweynuhu ka soo jeeday waa halkii shalay laga doortay ee uu xildhibaanka ka noqday dadweynaha reer saaxil waxa aan u sheegayaa in aynu u codeyno oo aynu dooranno ciidanaheena ka shaqeysa cid horumarkeena ka shaqeysa gobolkan waa gobolka ugu ayaanka daran leh waa gobolka dhaqaalaha Soomaaliland soo saara waa gobol aanay waxba kaga soo noqonin 70% uu ku contribute gareeyay miisaaniyadda qaranka sidaa darteed waxaan dadka reer saaxil ugu baaqaya in ay soo raacaan isbedelka walow ay hormood ka ahaayeen isbedelka ka haran qaaday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dadka reer Soomaaliland oo dhami maanta ay ku hadaaqayaan dadka reer Soomaaliland oo dhami maanta ay si hagar la'aan ugu hagar baxeen waxa uu ka bilaabmay gobolkan saaxil waxa ugu horeeyay gobolkan saaxil oo loo tirinayay inuu muxaafid yahay waxa uu iscadeeyay oo arrinkiisu banaan ka tagay maalintii musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Cirro uu safarka ku yimi soo dhaweyntii iyo qaabilaadii ballaadhnayd ee reer Soomaaliland oo dhami ay majiirteen waxay ka bilaabantay degmada Laasgeel Abdaal sidii loogu soo dhaweeyay weydikii ka warhayay magaalada Berbera gudaheeda hadalkeeda daa Hudisa Sheekh Qoyta arrintaasi waxa ay u horseeday ummadii reer Soomaaliland in ay dareemaan dadku inuu isbedel u baahan yahay waxaynu maanta ka warqabnaa gobolkii Burco Awdal iyo guud ahaan Soomaalilandba sida hagar la'aanta ah ee aan maragmadoonta ah ay diyaarka u leeyihiin codkoodii iyo guud ahaanba Sanaag iyo Soob iyo Maroodi Jeexba sidaa darteed waxa aan ku gunaanadayaa hadalkayga kooban ee aan kaga hadlayay tamarta in dadka reer Berberi ay u codeeyaan isbedelka inaynu codkeena siisano tamar jaban tamar casri ah inaynu codkeena siisano horumar iyo tadawur iyo koboc dhaqaale oo ay noo horseedo tamar jaban oo hormoodka yahay xisbiga wadani mujtamaca reer Soomaaliland iyo reer saaxil waxaan soo bandhigaynaa barnaamij siyaasadeedka xisbiga oo ay qoreen aqoon-yahano reer Soomaaliland ee ku buhoobay isbedelka ummadda reer Soomaaliland ay u baahan tahay haddii alla ka dhigo
gobolka Somaliland barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani ee ka qaybgalay doorashada madaxtooyada wuxuu ku dhan yahay halkan insha Allah biidbillah waxaan ku soo bandhigi doonaa tiir walba oo ka jawaabaya haddii ilaahay idmo baahiyaha ummadda reer Somaliland ay qabto baahida ay u baahan tahay waxyaabaha ay tabayaan ee dawladnimada 7 sano dhaafta ay fariidka ay gabtay ayuu ka jawaabay barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani waxaynu baranaynaynaa inuu ku faafin doono baahiyaha iyo qorshayaasha ay bilqada xisbiga wadani ay noqon doonaan kuwa ka jawaaba oo halkan ku soo bandhigi doono tiir walba ku soo bandhigi doonaan aqoon khibrad u leh barnaamijka xisbiga qayb ka diyaarintiisii imikana soo bandhigi doona ayaa bartan ku soo bandhigi doona oo ka jawaabi doona shaqo abuurka kordhinta dhaqaalaha wadanka oo 100% shaqo abuurka oo 115 ilaa 25 la gaarsiin doono kaabayaasha dhaqaalaha horumarintooda intaasba waxay qorsho u yihiin isbedelka aynu rabno ee ummadda reer Somaliland noloshooda bedeli doono insha Allah biidillah